الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، مشايخنا الكرام، الضيوف العظام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامتاس إسلامك كدب إلهي أيام هذلي عاو إسوكان كاني جلسة أين رجين إنه إن شاء الله تعالى إن وحبضا أو خيره إنه كبيران ميسانك قيبتي خيرك كفد إني خيرك إن شاء الله تعالى إن بدن أو عليسي ينوفله وإنه كبحسنه مالين تاس لقى كينا يقول لي هي يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. خيارتا dadkan muslimiinta ah cibaadallaah ee halkan sugu yimi ilaahay insha Allah taala socodkiina aad soo qaadeen talaabooyinkiina aad u soo qaadeen masaajidka iyo fadhigiina aad soo gasheen adduunkii iyo fadhigii aad ka doorateen biibitooyinka la fariisan lahaa ilaahay insha Allah taala ajar weyn iyo khayr badan ha idinka qoro oo miisaankiina xasanaadka ha idinku daro. intaas kadib nadwadeena tanu sidii horey loo sheegay waa nadwadii 12aad oo kamid ah nadwooyinkii ka socon jiray masjidkan barakaysan ee Masjid Rawda kana soo socday waqti dheer oo aad ka garanaysaan tirada nadwooyinka 12 nadwo ayay maraysaa oo sanadle ah. waxay soo bilaabatay sanadkii 2003 haddana waxaynu maraynaa 2014 intaas ama 12 sano way socotay 12 sano ayay isku tahay markii labada sano labada daraf laga soo xisaabiyo ajarkeeduna insha Allah taala dadkii fikradeeda keenay ayuu u socdaa. nadwadatan 12aad ciwaankeeda sanadka loo daray ciwaankaasu ahaa acmaal alquluub waxaana loogu dooray in badan oo dadkii kamid ah ayaa waxa la is arkay in dadkii ay noqdeen geed biyo ku qalalay oo dadkii iyagoo wacdi lagu akhrinayo oo kutubtii dhageysanayo oo khayrkii har iyo habeen la daldalayo oo idaacadihii laga dhageysanayo ayaa haddana si leesulaya dadka qalbigooda engegan yahay waxyaala suluukiyaad aan fiicnayn ama wax afka ka dhacayo carabka ka dhacaya ha ahaadeen ama waxa weeyaan si kale u dhacaya ha ahaadeen oo habdhaqan iyo tasarrufaad kale ku dhacaya ha ahaadeen tasarrufaad aan wanaagsanayn ayaa dadkii ka dhex muuqday. saas ayaa waxa la yiri bal dadka quluubtooda ha lala hadlo ha la isku dayo quluubta in la daaweeyo sababtoo ah qalbigu waa maamulihii jismigan dhan oo socdo oo weyn oo aynu aragnay meesha laga maamulo waa halkaas. hadday wanaagsanaatana jirka intiisa kale waa wanaagsanaan buu nabigu leeyahay salawaatullaahi wasalaamu calayh. hadday xumaato oo faraha ka baxdana jirka intiisa kale wuu xumaanaya. saas ayaa ciwaanka loo doortay markii muddo la gorfeeyay oo la fariistay oo culimada iyo gudiyadii hawshan u xilsaarnaa ay muddo fadhiyeen. ugu dambeyntii go'aankaas ayaa la qaatay ciwaankaas. nadwadatan diyaar garowgeedii gudiyo aad u tiro badan baa ka qayb qaatay ilaa 4 gudi. tirada guud ahaan dadka ka soo shaqeeyay oo culimada iyo gudiyadii ka shaqeynay kulli markii la isku daro 50 qof kor bay u dhaafayaan. nadwadu sidii aynu naqaanay waxay ka koobnaan doontaa insha Allah taala duruustan masaajidka ka baxaysa oo ah muhaadaraad leeyliya ama habeenkii duruus ka baxda masaajidka. waxay kale ka koobnaan doontaa duruus ka baxaysa iskuulada iyo macaahidda sharciga ah oo ardayda dhigata meeshooda loogu tagi doono insha Allah taala oo iskuulada dugsiyada sare iyo macaahidda la mari doono. waxa kale oo kamid ah duruus jaamacaadka insha Allah taala ardada jaamacaadka dhigta ay culimadu u jeedin doonaan oo culimada ay meeshooda ugu tagi doonaan maadaama ardaydu qayb badan oo kamid ah aysan ka soo qayb gali karin duruusta habeenkii ka baxaysa halkan. meeshooda ayaa insha Allah taala la goostay in loogu tago oo khayrka iyo wacdiga lagu siiyo. waxa kamid ah arday la soo xulay oo meelo kala duwan oo tiro badan laga soo xulay oo nadwo loogu qaban doono si gaar ah maalmihii
masaajida kan ama dood cilmiyeed loogu furi doono oo khusaysa iyaga ruuxoodu mawduucan qaybo ka mid ah waxa ka mid noqon doona duruus dumarka u khaasa oo galab socota duruustan habeenkii masaajidka ka baxaysa qayb kale ah oo maalmihii dumarka loo jeedin doono waxa ka mid iyada ruuxeedu duruus kale oo loo jeedin doono dadka tujaarta ganacsatada oo rugta ganacsiga iyo meelahooda loogu qaban doono waxa ka mid duruusta nadwada ka qaybta ka ah oo socon doonta insha Allah taala ama multaqaa kan cilmiga ama kunan cilmiyeedkan qaybta ka noqon doonta duruus loo jeedin doono dadka qaybihiisa kala duwan oo meel laysu dadka qaybahooda kala duwan dad laga soo xulay oo insha Allah taala meel laysu keenay ayaa duruus loo jeedin doona wacyigelina haday ka mid tahay dadka la dhaho qaybaha u shaqeeya arrimaha bulshada ka shaqeeya ururada dadka hay'adaha ka shaqeeya qaybaha kala duwan xukuumadda iyo dawladaha dhalinyarada dad noocaas oo kale ah oo la isu soo ururiyay oo sharaa'ixda bulshada qaybaha bulshada oo dhan ka kooban qayb duruus loo qaban doono ayaa iyaduna ku jirta insha Allah taala waxa ka mid ah duruusta insha Allah taala duruustan aynu hadda sheegayno oo dhan meelaha lagala socon karo maraakista aan sheegnay waa lagala socon karaa haday tahay masaajidka haday tahay meelaha iskuulada haday tahay macaahida haday tahay jaamacadaha haday tahay rugta ganacsiga meelaha la halmaala waxa kale oo lagala socon doonaa warbaahinta kala duwan warbaahintu haday tahay TV-yo oo caawa ilaa iyo 4 TV meelahaas insha Allah taala in la joogan waxa ka mid ah iyada ruuxeedu idaacadaha localka ah oo si joogta u baahin doona barnaamijyadan gaar ahaan idaacadda xikma iyo idaacadda SBC labaduba insha Allah taala geeyiga Puntland oo dhan bay ka baahin doonaan Puntland oo dhan bay ka baahin doonaan lagala socon doonaa nadwada waxa ka mid ah iyada ruuxeedu internetka ayaa lagala socon doonaa oo muxaadarooyinka iyo nadwooyinka la gelin doonaa oo kulli dadku ka dheehan doonaan waxa ka mid ah meela gaar ah oo sida baaltogyada qaybo ka mid ah oo insha Allah taala si toos ah ugu xiran muxaadarada oo dad tobanaan kun dhaafaya ay ku jiraan oo kala socdaan muxaadarooyinka nadwooyinka halkan ka baxaya waxa soo dhan insha Allah taala waxay qayb ka noqon doonaan مواقعدي بايدا روحيدو وببكي وبسيديدي با كاميدا oo insha Allah taala aan ku rajaweynahay ugu yaraan inay 8 webpage ama wax ka badan ay baahiyaan waxa kamida meelihii social media ama tawaasul ijtimaaciga sida Facebook-yada iyo wixii la halmaala kulli insha Allah taala waa lagu baahin doonaa nadwadan iyo qaybaheeda kala duwan ee yada ruuxeedu la socda insha Allah taala culimadeenan hadda in hor fadhida iyo culimo kale soo socota kulligoodba way kala qayb qaadan doonaan waxaan rajaynaynaa in aad looga faa'iideysto oo nadwada si fiican looga faa'iideysto ma rabo inaan ku dheeraado nadwooyinkan waa saan soo sheegnay hore u soo socdeen anaawintoodii haddaan dul maro 12kii sano ee la soo qabtay tii ugu horeysay waxa la oran jiray ganacsiga ayay ka hadlaysay tan ku xigto reerka ama qoyska muslimka ah iyo ahkaamta ku tacalluqda wada noolaanshihiisa iyo sidii ay u noolaan lahaayeen tan ku xigta waxay ahayd العقيدة الإسلامية أو واحد إنه آمن سنة هيئة واحد هاي كل حكتي يد الروحيضو السياسة الشرعية تنكسي حكتي شناد واحد هاي أسباب النهوض الأمم أما سيدا وحيالها كان إن ضد كرو كعان ضد إنه هرمران وهرمر جاران وحيالها كان أسباب تكانته حالات ده هذا مسلم كوجرو بقى كل حكتي أما حالات الصومالية أي مرة يسوق حال راهنا وحلا يراهدو واحد كسي حكتي ندول يراهدو محمد رسول الله أما النبي كان لقى هاللاي يدفاع عيسى مرر وحلا شيء وحكجرتي أزمة الصومال في منظور إسلامي مشكلة الصومالية هي ستاه مر يضل لقوا إيجايو لنا إسلامي لقى إيجايو أيها كم ده هيد وحكم ده الدين والنصيحة وحكم ده منهج التغيير عند أهل السنة والجماعة وحكم ده الإسلام والعصبية القبلية وهايتي سنة كهراء تناو قدام يسهد أو أعمال القلوب لبيه طبعا كي درسي la soo qaatay sanawaadkii la soo dhaafay ayay ahaayeen waxaan rajaynaynaa insha Allah taala nadwada ugu damaynta waxaan ku soo koobayaa in laga faa'iideysto oo aad ka faa'iideysataan culimadaas meel fog rag idinka yimi baa ku jira ugu damayntii waxaan jeclahay insha Allah taala kulligiin in aad mar walba oo nadwadan oo kale aragtaan aad soo xasuusataan ducana u raacisaan fikradatan dadkii ugu horeeyay ee lahaa oo hadda qayb badan oo kamid ah ina ka hooseyso culimadeeni sida دكتور الشيخ أحمد حاج عبد الرحمن رحمة الله عليه رجي ugu horeeyay ee fikradda nadwada keenay ayuu ahaa sida Sheekh Cabdi Qaadir Nuur Faarax
xilliyadii ay joogeenna hal nadwo ay ka maqnaadaan ma jiri jirin caawa wayna ka hooseeyaan waxaan rajaynaynaa insha Allah taala ajarkoodii inuu u socdo oo camal khayr oo ay bilaabeen ay tahay in loo duceeyo oo qof walba si fardiya ugu duceeyo ayaan insha Allah taala ka codsanaynaa xuduurka iyo cid kastoo na maqlaysa oo warbaahinta nagala socon doonta kulli waxaanu ka codsanaynaa culimadaas dhaxalka inoo ka tagay iyo in badan oo kamid aynan soo koobi karin inoo ka tagay aynu u ducayno uguna ducayno ilaahay jannadii fardowsa inuu fadhigooda ka yeelo inay fardowsa ilaahay ka waraabiyo insha Allah taala ilaahay inoo ka daba naxariisto intaas ayaan ku soo koobayaa wajazaakumullahu khayran wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh